السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماني وعنا ونكسس صاحبيال مeel walba adduunka ka joogtaan maanta ma ahan barnaamijyadii hore aan idin soo gudbin jiray ee ciyaaraha iyo waxyaabaha iga barateen kan waa barnaamij cusub waa tan hore idin kala sii ballamay oo nidiri kab cusub baan soo wadayo hol cusub baa soo socota oo aan idinku cimaamadi doonaa waa barnaamij gaar ah oo maalinle ah waana barnaamij magaciisu yahay qadar show wuxuu qayb ka noqon doonaa barnaamijyada maalinlaha ah ee channelkeena oo aan ciyaaraha xooga ku saarno وانا برنامج مددالة وانا ugu hadli doono waxyaabaha adigu ka yaabinaya oo caalamka ka dhaca walaga qosulsiinaya inaad caburiso maaha waantu dhan waad iska qoslaysaayo walaga farxinayo markaad soo warartaba intaad madax degsi soo doonaysa madax degsi xanaaqa iyo carada ku haysta walaga kala kicinayo adigoo qoslay iska bixi doonta barnaamijyadan oo aad u badnaan doona waxa ka mid noqon doona dhacdooyinka yaabka leh ee ciyaartooyga iyo kooxaha qabsaday waxaan soo eegi doonaa dhacdooyinka ciyaartooyga qabsaday ee yaabka lahaa ee ka yaabinaya iyo waliba kooxuhu taageertaan waxyaabaha ku dhacay baan ku sheegi doonaa yaabka lahaa iyo waliba la yaabka dunida adduunka ka dhacna waanu eegi doonaa aflaamta sheekooyinkooda waan idin sheegi doonaa aktorooyinka caanka ah ay shukaansaday inta film isla keeneen kuwa hindiga aad idinku jeceshiin kuwa maraykanka musaaricadii iyanu qayb bay ka noqon doonaan sirooyinka fudud ee qofku isku caatayn karana qayb ay ka yihiin oo ninka idin la hadlaya waa nin PhD ka wata iscaataynta hawsheediina waaya kabtana waan gishtaa وإذن واحد بدن بني كشيء جدونا دتك قارئ شبكة دتك عيلان الشبكة أنا ونعم عمدي دونا سيروا هذا بنو شيء جدونا فت كنا قدونا كو عتوبة يعني واحد بدن بنك عقدت النام يا نكانوا ونين كبتا صاقشت يعني هوشان هو هولان هروس وقبتيو مركز سيروين كفض فضد تكون عتوبة كرتو ملو كريواي هذا تكلو كريا محمد غدر باكو كريا هدان wax badan ku sheegi doona iyo waliba kuwa caataysan ee habar xaliima kari laadahay cunowga idilay saxan haday cunaan saxan yaalo haday cunaan finyooraha saxanku haday soo bixiyaan cuntadu dhameeyaan xataa aan wali cayilayna waxbaan ku haya iska dhaaf adiga bug iska dhihi doono ilaahay amarkiibadna ku dhihi doontaayo sirooyin baan kugu sheegi doonaa habka la isku caateeyo iyo habka la isku cayiliyaba qadar showban idinku soo gudbin doonaa oo barnaamij maalinle ah taariikhaha waaweyn ee caalamka ka dhacayna waa ka qayb ila qosolkiibaana qayb ka ah iyo barnaamijyo wacyigelin ah maalinba qayb ayaanu soo qaadan doonaa oo aan ku baashaali doonaa ku qaraaxaysan doonaa qadar show wuxuu noqon doonaa barnaamij maalinle ah oo qayb ka noqon doona labada barnaamij ee warka maalinimo iyo warka habeenimo ayuu qayb ka noqon doona isaguna qayb kale saddexaad buu noqon doonaayo oo aan idinku soo gudbin doonaa channelkeena kan marka waxaan leeyahay channelkan dadka ugu xoogan waa dadka ciyaaraha jecel howlihiina waa sii soconayaan lama taabtaan weeyaan meeshaan channelka kanu reer Kamaldaariya xoog ku leh banooniga baa xoog ku leh ayagu cimaamadooda lama haysan karo marka dadka kalena ee aan ku badayna ee aan Kamaldaariyeyn ee aan ciyaarayna ayaguna waan u cimaamadaynaayo barnaamijkan qadar show baan ugu soo bandhigi doonaa waxyaabo dunida ka dhadhaca waxyaabo gaar ah ay ugu baahan yihiin marka sidaas daraadeed marka dadku ciyaaruhu taageereen bajalka ku xirana ayagu dad waxa ku jira dad kab kasta gashanaya ku jiro maxamed qadar oo kala kula ciyaaraynaya meelaha kala galaya meel kasta ku jira kanba ku jira dad waxa jira meel kasta galayo hawshoodu tahay marka xitaa kuwa ciyaaraha meeshan qayb qadar show waxa qayb ka noqon doona la yaabka dhacdooyinka ciyaaraha ka dhacay ee la yaab kale qayb ka noqon doono marka lagu daro kuwa kalena way qayb kalena way soo hosgali doonaan oo ay ahaan lahaayeen madadaalada kale ee iscaatayntii aflaamtii iscayilintii ruwaayadihii maxaa yiraahdaaye ila qosolkii dhacdooyinkii yaabka lahaa wax badan madadaaladii iyo waliba sidoo kale waxa ku jira karay wacyigelinta ila qosolkiiba marka barnaamijkan maanta ayuu noo bilaabi doonaayo marka barnaamijkan qadar show hadad aragto waa barnaamijkii qosolka iyo qaraaxada uu noqon doonaayo waa ka haddaba maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qaybo xiiso badan ayaan ku soo qaadan doonaayo barnaamijkeena maalinta ugu horeeyay ku furi doonaa marka qadar show hadad aragto waa qaybtii qaraaxada labadii qayb ee sportiguna wali waa ku sii dhiban tahay ee maalinlaha ahaa maanta waxaan ku daafuraynaa barnaamijkeena kan qadar show waa laba dhacdo yaab leh midna waa ciyaaraha midna waa la yaabka dunida waxaan maanta kugu sheegi doonaa haddii aad maqli jirtay telefoon casri ah soo baxay telefoon kale oo saasa soo baxay iPhone X Max baa soo baxay kanubaa soo baxay kanubaa soo baxay dad maqli jirtay waxaan maanta ku hayaa waxa soo baxay telefoon lagu hadlayo dadka qubuuraha ku jira hor u geeriyooday saasay leeyihiin
waa waxay sida iyagu leeyihiin maahan wuxuu maxamed qadar leeyahay waxay warbaahintu caalamka qorayaan telefoon lagala hadlo dadkii geeriyooday ama dhintay waa ilaahay amarkii waa waxaas inkastoo anagu muslim nahay waxaas ma jiraan laakiin waxaan kugu sheegaya waxay tahay dhacdon bay jirtay inay tahay oo telefoonkii dadka dhintay lagu hadlay iyo waliba inay ciyaartooyga Liverpool shaxaariyaal yihiin waan ku sheegayaayo nimankaasu shaxaariyaal way war cidda lama karayo maxay yihiin waa niman dhib badan oo lan la joojin karin shaxaarnimadana waa kaaga horeeyaan hawlahan kale waa ku jiraan iyagu iyo taageerayaashooda isku mid taageerayaashooda looma noolaan karo markay wax sameeyaan naftay ka qaadayaan loo joogi karba wadil kaftamaya reer Liverpool marna wadi ku gama marna waan idin ku tuuraa waayahay haddaba aan ku horumarno qaybaha dhacdada ciyaaraha la yaabka ugu weyn ayaanu soo qaadan doonaa isbuuca kan miyaad ogeyd gabar kusoo dhex oroday Champions League gabar baa jirtay oo kulankii Champions League finalkiisii kusoo oroday gabadha waa gabar model ah oo la yiraahdo Kinsey Wolonski waana gabar Mareykanka u dhalatay gabadha taa ayaa kusoo dhex oroday finalkii Champions League si ay shacbiyad ugu sameeyso halka ee ay taageerayaal badan ugu hesho intay dhar yar isku soo reebtay oo gaagaaban bay garoon kusoo dhex oroday gabadha ahmiyad kala ma aysan lahayn garoonku waxay u timid kaliya ma ahayn Liverpool ay taageerayso ma ahayn Tottenham ay taageerayso banooni shaqo uma jirto taageerayaal Liverpool oo garoonku fadhi way la yaabeen gabadha markay isdiyaariyay dharka iska siibaysay waxay yiraahdeen war maxaad rabtaa garoonku dhex ordi rabnaa bay yiraahday ay tiri garoonkan ku dhex ordi rabaa oo aad ma ciyaar u maanin bay tiri anigu meesha hawl kala u imaaday hawsheedun baan furisanaya bay ku tiri haddaba gabadhu taa waxay noqotay gabadha ugu hadalhaynta badan waxay garoonka u gashay waxay ahayd caannimo iyo barihida bulshada in taageero badan u hesho saaxiibkeedna channelkiisa uu taageero badan u helo haddaba gabadha la yiraahdo Wolonski oo gabadha garoon ku soo oroday ayaa heshay taageerayaal 2 milyan oo follower ku soo biray barteeda iyadoo sidoo kalena saaxiibkeed bartiisu ay iska diiwaan galiyeen 32 milyan oo dad oo taageerayaal ah oo halkaas uu ku soo bandhigo filimada akhlaaqda xuno marka gabadha muhiimadeedu waxay ahayd inay garoon gasho taageerayaasheeda u kala kacaan hadda barteedu 2 milyan dad ku darsaday ninkan saaxiibkeed ahana YouTube channel ka lahana iyo waliba website lana website dad badan baa iska diiwaan galiyo hadda kadib la socod doona kadib markii gabadhu markii la qabtay habeenkii waa tii la xiray oo gabadha waa la xiray waa la soo daayay oo markii la soo daayay waxay ka sheekaysay in dad badan ay la soo xireen ay ku jiraan ciyaartoy caana waxay gabadhu sheegtay in ay noqotay qof hadda caana waxay tiri markaan da'da 30 jir gaaraba waxaan haystaa lacag igu filan oo weligii ku noolaan karo waxay tiri waan ku taajiray bay tiriyo aqli fiican buu tiri inaan Champions League galo saaxiibkiiba igu yiri bay ay tiri Champions League finalkiisa isku ku dhex orod markaas waxay waxaas oo may taageero lahaynba ma maleysan karin bay tiri intaan taageero lagu helayo hadda nolosheeda mustaqbal noqonaysa ay tiri lacagta iyo lacagaha aan heli doono markaas 30 sano jir gaaro markaa way igu filan doontaa in nolosheeda ma aanu shaqayn bay leedahay waxay kaloo gabadhu cadeysay in hay hadda noqotay qof caana shaqooyin badan xataa laga soo dalbaday qof kasta uu leeyahay war kale anaga noo shaqay caanimada ceenka oo wax yar kuma heli kartid bay leedahay dhan kale waxay cadeysay in ciyaartoy Liverpool ay iyadu la soo xiriireen waxay tiri kuwaas waa shaxaariyaal ayaa nimanku xataa booliiskii Spain ee xiray gabadhu waxay yiraahdeen bay sawirna la gal war nooc ciidamad gabadhu gabar caadi ma wayn ciidamada lama haysan kara la leeyahay ya gabadhu caadi ma wayn marka waxay tiri xataa booliiskii la sawir bay la doonayeen bay tiri markaan gurigeygii tagay ciyaartoy badan oo magac laba ay la soo xiriir bay leedahay kuwa Liverpool waxay tiri anigu ma sheegayo wax magacyo ah laakiin dhowr xidig oo Liverpool ayaa ii soo diray fariimo soo jiidasho leh dad iska soo tuuray ciidamadaba la kadib markii aan dhex orday kulanka ciidamadeeda way haysan kari weyn bitir habeenkii markaan gurigeyga tagay oo leeday rag Liverpool ka tirsan way soo daadinayaan baayo habiibi aniga ku saan ku yeelayo aniga kor ku qaadayo markab yaalan ku geynaya markabaan ku saaraya kan baan ku yeelaya markuu ma sheegay tiri magacyo laakiin xidig Liverpool ayaa ii soo diray fariimo soo jiidasho leedahay kadib markii aan dhex orday kulanka mid ayaa ii soo diray sawir yar oo wadna qalbiga laga hayaabay ku igu leeyahay halka kuwa kale ay soo direen fariin oranaysa wallahi qoftii garoonkan ku arkay maadun ahayn gabaray wallahi wax kala tahay waariya qatar waariya ma digu turtid cimaamada yani iska kay aqbashidba walow anigu aan leeyahay bay tiri saaxiib marka ciyaartooyga Liverpool waa dad qatar badan oo maxaa la yiraahdaa shaxaariyaal weeyaan oo gabadhii laga qaban leeyahay gabadhu waxay leedahay war fariin bay nafta nooga qaadeen kuwa Liverpool taa ciyaartoygoodu ahba laakiin nin taageero ah oo Liverpool ayaa gabadhu habeenkay garoon ku dhex sheekaysteen ee ku yiri war maxaad rabtaa ciyaartan ku ordaya markii tiri oo adu ciyaartan mu imaanin miyo waran ciyaartan u imaanin bay tiri meeshan dan la u imaadin meeshan ku dhex ordo ciyaar iyo banooni ma kala jecel tiri aniga wuu yaabiyay ninkii wuxuu bis markaad garoon ku dhex galayso
markay Liverpool kubadda wadatay position kaysto walaalay garoonka ku dhaxurday buu yiri ya kolba marka dharkan ha iska sii marka maxay yeelay iyagu kubadda wata haday ku arkaan adigoo ma taqaana saana xaalkaaga yahay oo garoon ku dhaxarado ayagu dhanba waa indha sarcaadayaan kubadda in laga qaadina laga dhalinaya marka Liverpool wuxuu yirinka taageero waa ku bariya marka uu kubadda haysan uu ku ordi garoonka gabaray marka waa kaaya dhacdada Liverpool dhan kalena dhacdada kale ee la yaabka dunidu ee ugu weyn ee maanta ku soo qaadan doono barnaamijkeena kan waa qadar show oo bilow ah barnaamij xiiso leh oo idin soo gudbin doono maalin walba waxa qayb ka ah waxa la leeyahay waxa soo baxay telefoon lagula hadlayo dadkii dhintay oo qarabadooda ay kula hadlayaan warkan oo qortay BBC-da magaalo yar oo lagu magacaabo Stuttgart ee ku taala dhinaca waqooyi dalka Japan 2,000 oo qof ayaa ku dhintay markii musiibadii tsunami ay dhacday sanadii 2011 tan iyo xilligaas dadka ehelada la ahaa kuwa dhintay waxay isticmaalaan telefoon ay sheegeen inay kala hadlaan qubuuraha ilaahay amarkiis badna arshuqul gaalwa anagu in kasta muslim nahay man aaminsanay qof dhintay inuu soo hadli karo man aaminsanay waa ku sheegaya musliman nahay ma aaminsani qof dhintay in la hadli karo waan waxaan jir laakiin waxaan kugu soo gudbinay war ahaano war dadkan waa dad yaab leh waa kabgaaleed waxa karu marka dad dhintaban qabuuraha kala hadlayna bay leeyihiin telefoon kula hadlayna mid kamid dadka deegaanka oo horeba ugu baroor diiqay in adeerkiis ka hor tsunamiga ayaa la yimid fikir ah in telefoon aan fiila ku tiirsaneen ama ku xiriirsaneen la dhigo gunta qabrigiisa yaani la kor saaro wuxuu wici jiray lambarkii uu lahaa in adeerkiis kadibna wuxuu la hadli jiray isagoo aaminsan in dabayshu ay codkiisa gaarsiinayso meedka qabriga ku aasan kadib markii ay dhacday musiibadii tsunamiga markii warkii ku saabsanaa telefoonka qabriga wuu faafay dad badan ayaa u yimid magaalada Stuttgart si ay u wacaan dadkoodii dhintay arshina meeshaas telefoon laga sheegay xaggan aado dadkii waa soo sheegeen war telefoon baa yimaadayo dadka dhintay lagu hadlayo waa Japan baa lagu qabtay dadkii dhanba dadkii ka dhinteenba waxay aamineen in telefoonka dadka dhintay lagu hadlayo telefoonka qabriga lagu wacay dadka dhintay lagu sheekaysto bay wada doonteen baa leeyahay oo magaalada Stuttgart bay wada aadeen kumanaan ruux ayaa telefoonka u adeegsaday in dadkooda dhintay kala hadlaan tan iyo markii ay musiibadu dhacday 2011 nin kamid ah dadkaas xaaskiisa ayaa ku dhimatay bisha biyihii tsunamiga waxaanay arintaas sabab u noqotay inuu kaligiis koriyo 4 carruur oo isu dhaleen hadda wuxuu yimaadaa halka uu telefoonku yaalo telefoonkaas ayuuna kala hadlaa qoyskiisii geeriyooday waan ogaa inuusan qofna ii jawaabi doonin buu yiri laakiin waxaan dareemay in xaaskaygu ay maqlaysay marka waxaan u sheegay gabadheena iyo aniguba in aan meedkeedu raadinaynin muddo dheer aanu ka quusanay helitaanka meedkeeda laakiin maalintii ugu dambeysay aanu helnay waxa kale oo aan ku dhahay waan ogahay inaadan soo noqon karin balse anigu ayaa mustaqbal ku iman karaya markii aad indhaha isku qabato waxaad dareemaysaa sida inaad dhageysanayso qof kale codkiisa kulaha aad ayaan u faraxsanahay wuri telefoonka dadka lagu la hadlo ee geeriyooday kulaha nin kalena waxa masiimadu ku waayay wiilkiisa xaaskiisana waxay geeriyootay 4 sano kadib isagoo la hadlaya wiilkiisa inta wuxuu yiri war hello neyobok miya waa abaha qofka kula hadlaya maxaad sameynaysaa hadda ma kula joogtaa hooyada waxa laga joogaa 8 sano markay dhacday musiibadii tsunamida hooyada markay iga tagtayna waxa ka soo wareegatay 4 sano walina waxaan isku dayaa inaan nolosha isii anbaqaado waa idin soo noqon doonaa mar kale xilliga jiilaalka imaado waad mahadsan tahay niyobki haddii aan kulligeen halkan isla wada joogi lahayn hooyada aniga iyo adiguba xaaladdu sidan way ka fiicnaan lahayd waxaan ku dadaali doonaa inaan nolosha iska sii wato fadlan hooyada ka warqab oo xanaanee nabadgelyo mar kale ayaan kaa soo wici doonaa telefoonkan dunida ah ee dadka reer dunida aan hayn lagula hadlo dadka dhintay lagu hadla uu leeyahay warkan ilaahay amarkii marka waxa la leeyahay waxa soo baxay telefoon Japan hadda waxa dadku kula hadlaan Japan waxa yaala marka telefoon cusub oo dadku ay aaminsan yihiin in lagu hadli karo dadkii geeriyooday ka dhintay markaas halka kala sheekaysanayaan ay kula hadlayaan ogow anagu muslim baan nahay qof dhintay ma soo noqonayo qof dhintay ma hadli karo laakiin waxaan kugu sheegay waxay tahay warbixin ahaan iyo sheeko yaab leh oo dunidu ay soo gudbinayso wargeysadu caalamkan ay qorayaan barnaamijkeena xiga waxaad ku daawan doontaa sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku saabsanaan karaya la yaabka dunida la yaabka ciyaaraha aflaamta hindiga iscaataynta iscayilinta madadaalada ila qosolka sheekooyin cajiiba ruwaayado iyo kuwa kale oo badan ayaan idinku soo gudbin doonaa nabadgelyo